بسم الله الرحمن الرحيم halkani waa sahan academy hoyga barashada aqoonta iyo xirfadaha wali waxaan ku gudi jirnaa course-kii aynu ugu magac darnay ee biology oo aynu ku baranayno grade 9 oo markaasi ah fasalka ee sagaalaad ama form 1 waxaan maraynaa lesson 18 oo markaasi ah casharka 18 casharkana waxaan kaga hadli doonaa waa animal tissues nodayaasha ee xayawaanka ayaan casharkan uga hadli doonaa waxaan filaa 17 casharo inuu hore usoo daawanay in si fiican loo fahmay hadii ay jiraan su'aalo ku saabsan 17kaas casharna waad ina soo weydiin kartaa WhatsApp aad nagala soo hadli kartaa ama email aad inoo soo diri kartaa adigoo emailkaaga cinwaan uga dhigayo qaybta aad rabto inaad su'aal inaga weydiiso sidoo kale waxaan filaa talooyinka aan ka jeediyay muuqaaladaasi 14 aha ama 17 aha in la qaatay ama hadii kadib la qaadan doono taa ku saabsanayteen cilmigan waxyaabo badan oo ku saabsan in markaasi la raadiyo aynu gudaha u gal marka course-ku waa biology grade 9 aynu ku baranayno lesson 18 oo casharka 18aad ah animal tissues ayaan kaga hadli doonaa waa nodayaasha xayawaanka ayaan kaga hadli doonaa casharkii hore ee 17aad waxaynu kaga soo hadalnay tissue-ga ama nodaha si guud ayaan uga soo hadalnay inagoo si gaar ah uga markaasi qaada dhignay plant tissues aynu kaga hadalnay marka casharkan oo 18aad ahna waxaan kaga hadli doonaa animal tissues oo markaasi ah nooca labaad ee nodayaasha markaasi jira oo plants iyo animals ayaan markaasi usoo kala qaybinay yani plant tissue iyo animal tissue so marka plant tissue waa casharka 18 ayuu markaasi u noqon doonaa aynu gudaha u gal marka types of animal tissues aynu ku horumarno marka hore waxa lagu magacaabo noocyada nodayaasha xayawaanka waxa markaasi ayagu ay yihiin waxa la yiri animal tissues nodayaasha xayawaanka are grouped wal kooxeeya waxaana loo qeybiyaa into four basic types afar nooc oo asaasi ah ayaa loo qeybiyaa animal tissues waxayna kala yihiin epithelial tissue connective tissue muscle tissue iyo sidoo kale nerve tissue ayaa markaasi loo kala qeybiyaa oo animal tissueska marka afartan ama nodayaasha xayawaanka afartan ayaa loo qeybiyaa noda maqaareed noda isku xiraa ah noda muruqeed iyo noda dareensida ayaa markaasi lagu kala magacaabaa animal tissues nodayaasha xayawaanka are grouped waa la kooxeeyaa into four basic types ayana loo qeybiyaa afar nooc oo asaasi ayaa loo kala qeybiyaa epithelial tissue noda maqaareed ayaa la yiraahdaa connective tissue noda isku xiraa ayaa la yiraahdaa muscle tissue noda muruqeed ayaa marka lagu magacaabaa nooca afaraad ee nodayaasha jirana waxa lagu magacaabaa nervous tissue ayaa markaas lagu magacaabaa nerve tissue waa noda dareensida ayaa markaas lagu magacaabaa aynu mid u kala qaada marka aynu ku hormarno waxa loo yaqaan epithelial tissue oo markaasi ah noda maqaareed waxa la yiraahdaa epithelial tissue ayagu are wide spread waa kuwa markaasi aad ugu baahsan way throughout the body jirka aad ay markaasi ugu baahsan yihiin epithelial tissues marka laga hadlayo ama noda maqaareedka marka laga hadlayo waxa la yiri they form ayagu waxay sameeyaan oo epithelial tissue waxay sameeyaan the covering ay sameeyaan dahaar ama dabool ayaa waxay u sameeyaan of all body surfaces dhamaan oogooyinka jirka waxay u sameeyaan dabool ay u sameeyaan sidoo kale line of body cavities and hollow organs xubnaha hollowga ah ee godka leh yani hollowga ah iyo sidoo kale cavities ama duleelada jirka markaas uu leeyahay laftirkooda waxa markaasi dahaar u sameeya wax loo yaqaano epithelial tissue ayaa markaasi dahaar u sameeya function marka shaqada uu qabto epithelial tissue ama noda maqaareedka shaqooyin badan ayuu qabtaa noda maqaareedka shaqooyinkiisa waxa kamid ah protection of underlying tissues inuu markaasi u difaaco nodayaasha kale ee markaasi guud ahaan nodayaasha inuu markaasi isaga u difaaco absorption inuu sameeyo nafaqada inuu soo nuugo isaga markaasi wuu sameeyaa secretion inuu sameeyo inuu wax soo dhiijiyo ayaa kamid ah shaqooyinka epithelial tissue sidoo kale shaqada kale waxay tahay reception of sensory stimuli yani waxa way inuu ogaado dareen markaasi inuu ogaado dareen markaasi jirka ka jira inuu ogaado waxay kamid tahay shaqooyinka epithelial tissue uu qabto soo marka waa kuwa ugu badan jirka laga helo way aan aad marka nooca labaad waxa lagu magacaabaa connective tissue waa noda isku xira ayaa markaas lagu magacaabaa waxa la yiri connective tissue is one of the most common tissues waa mid kamid ah nodayaasha ugu badan ee our bodies ee laga helo jirkeena nodayaasha jirkeena laga helo ee afarta ah kuwa ugu caansan midka koowaad waa epithelial tissue midkanina oo connective tissue-gana waxa uu kamid yahay noocyada ugu badan ee markaasi laga helo jirkeena nodayaasha ee laga helo jirkeena it includes wuxuu isugu jira many types noocyo badan oo tusaalayaal ah include waxa kamid ah bone lafta cartilage aljow lymph waxa la yiraahdaa
dheecaan ayaa markaas lagu magacaabaa dheecaan walba oo jirka ku jiro lymphatic system waa noo iman doona blood iyo dhiiga soo marka dhiiga ma ahan cell ma ahan organ ma ahan waa tissue nooca uu ka yahayna waa connective tissue way boneska saas oo kale dhafa cartilage-ka lymphigana sidaas oo kale connective tissue-ga marka nude isku xaraaga markaan ka hadlayno isaga can be classified into waxa loo kala ablayn karaa saddexdan qaybood waxa la yiraahdaa proper connective tissue yani nude isku xaraag ah oo markaas proper ah mid kale supporting way yani taageera way isaga wax uu taageera yani connective tissue oo markaas supporting ah sidoo kale fluid connective tissue ayaa sidoo kale jira yani waxa waaye dareera way connective tissue gan dareera oo waxa kamid ah bloodka ayaa markaas kamid ah iyo lymphiska soo marka connective tissue waxa waaye waa mid kamid ah nudayaasha ugu badan ee jirkeena laga helo isaga waxa kamid ah lafaha waxa kamid ah arjowga dheecaanada kala duwan ee jirkeena ku jira iyo dhiiga waxa loo kala qaybiyaa saddexdan waa proper connective tissue supporting connective tissue iyo sidoo kale fluid connective tissue ayaa loo qaybiyaa aynu aad marka midka saddexaad waxa lagu magacaabaa muscle tissue nude muruqeed ayaa markaas la yiraahdaa waxa la yiri muscle tissue is composed of wuxuu markaasi isaga uu ka kooban yahay long excitable cells yani unugyo oo ayagu markaasi aad u dheer marka la fiirinayo liilasha ayaga ay samaysan yihiin oo fibers ayaga ay leeyihiin containing ka kooban parallel microfilaments ka kooban yani saymo oo yar yar oo hadana parallel ah oo isbarbar socda ayuu markaasi ka kooban yahay hadana ah contractible proteins ah proteino oo contractible ah oo markaasi ayaga isla xiriira way waxa la yiri marka muscle tissue-ga markaan ka hadlayno muscle fibers waxa la yiraahdaa ayaa jiro yani liilasha uu marka ka samaysan yahay waxa loo yaqaano muscle tissue-ga ee loo yaqaana muscle fibers ee loo yaqaana marka muscle fibers ama liilalka muruqeedka uu ka samaysan yahay half waxa the fluid characteristics ayuu leeyahay astaamaha soo socda ayuu leeyahay ko waxay leeyihiin excitability excitability waxa la yiraahdaa awoodda oo markaasi respond to stimulus dareenka awoodda uu muruqan kaga jawaabi karo ayaa waxa loo yaqaanaa excitability ayaa marka loo yaqaanaa extensibility waxa la yiraahdaa awoodda uu muruqan starch uu ku kala bixi karo ayaa markaas la yiraahdaa sidoo kale characteristics ay leeyihiin nerve fibers wax kamid ah ama muscle fibers waxa kamid ah contractibility ayaa sidoo kale kamid ah yani waxa way awoodda contraction uu ku sameyn karo uu ku kala bixi karo sidoo kale elasticity ayaa kamid ah waa awoodda move back uu markaasi kaga noqon karo oo dib ugu noqon karo muruqan it is original ama to the original positionka ama meeshiisii asalka ahayd awoodda uu kaga noqon karo ayaa waxa loo yaqaanaa elasticity ayaa markaas loo yaqaanaa nooca afraad ee nudayaasha jirka bini aadanka ama xayawaanada oo dhan waxa lagu magacaabaa nervous tissue ayaa markaas lagu magacaabaa nervous tissue-ga markaan ka hadlayno haas waxa two kinds laba nooc cells oo unugta uu leeyahay waxaana lagu kala magacaabaa neurons and neuroglia cells ayaa markaas lagu magacaabaa nervous tissue-ga laba nooc oo unugta uu leeyahay neurons iyo neuroglia cells aynu mid u kala qaadna marka neurons waxa la yiri is the functional unit of the nervous system waa qaybta ka shaqeysisa nervous system-ka ayaa markaas lagu magacaabaa neurons soo marka waxa la yiri neurons are also known as sidoo kale magac kale loo yaqaan oo ah nervous cells waa la yiraahdaa wax loo yaqaan neurons ama laakiin neuroglia are also called sidoo kale waxa loo yaqaan glial cells ayaa loo yaqaan ama glia ayaa la yiraahdaa waana any several types waa nooc walba of cell ka tirsan that function primarily oo markaasi shaqadiisa asaasi ahaan ay tahay to support inuu taageero neurons inuu taageero ayaa markaasi loo yaqaanaa waxaan filaa markeen casharkan wax badan laga fahmay markan aan aadno questions oo markaasi ah su'aalaha casharka su'aashkooda waxay ku leedahay animal tissues markaan ka hadlayno unugyada xayawaanka ama nudayaasha xayawaanka classified waxa loo kala ablaableeyaa into afar qaybood ayaa loo kala ablaableeyaa what are they maxay yihiin su'aasha labaad waxay ku leedahay which types of tissue is mostly in the body noocee ayaa markaasi nudayaasha afarta ah ee xayawaanada laga helo ee jirka laga helo nooca ugu badan ee jirka laga helo waa noocee nudayaasha afarta ka tirsan tal waxaad sheegtaa two functions laba shaqo oo epithelial tissue uu qabto ugu dambeyntii su'aasha afraad waxay ku leedahay waa outline check three examples connective tissue ama nudaha isku xiraaga ah saddex tusaale isaga uu leeyahay sheeg su'aasha kale ee shanaad waxa la yiri connective tissue markaan ka hadlayno classified waa la kala ablaableeyaa intuu waxaana loo kala ablaableeyaa what maxaa loo kala ablaableeyaa su'aasha lixaad waxa lagu yiri what's the difference between neurons iyo neuroglia farqiga u dhaxeeya ee muxuu yahay waxaan filaa markeen casharkan si fiican loo fahmay inta aynu ku soo gabagabeynayna casharkana inta aynu ku kulmi doonaa casharka xigana waxaan idinkaga tegaynaa sida nabadiino wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh